kumanaan caraysan ayaa halkan isugu soo uruuray si ay midnimo u muujiyaan uguna duceeyaan dadkii ku dhintay qaraxii 14 Oktoobar. waxaan sabtidii qarax cabjina wallahi ma nasaxan waxaan u soo jeedaa waxay tahay dhibta ina gaadhay Soomaaliya oo dhan wada gaadhay wallahi waxaan leeyahay Soomaalida haddii aad dhimanayso dhereerka waa la iska tiraa dhab waxaa loo difaacdaa dhulka aad leedahay runtii waxaan leeyahay dadka shacabka Soomaaliyeed isku tashtaan wada qabsadaan dadka dhibaaya ee qaraxa sameynayna waxaan ugu baaqayaa baaq nabadeed oo waxaan leeyahay dadkiina shacabkeeda Soomaaliyeedna waxaa ku jirta hooyada waxaa ku jirta walaalka waxaa ku jirin adeerka in abtiga waxaan leeyahay dadka qarxinayo ilaahay ka cabsada shacabkiina Soomaaliyeed u diirnaxa. mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda Soomaaliya ayaa shacabka la wadaagay dareenka isku duubnida ah waxa ayna fursadan kaga faa'iideysteen in ay si gaar ah dhalinyarada ugala hadlaan la dagaalanka al-shabaab. musiibadan waxaan ku bedelaynaa dhibkan midnimo iyo wadaniyad waxaana koow ka ah oo aan doonaynaa inay u kacaan oo loo kaco ay u kacaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay u kacaan muddadii 3 maalin ahayd oo dawladda Soomaaliya ay u qoondaysay in ay socoto baroor diiqda loogu talagalay dadkii ku dhintay qaraxii Soobe waa ay soo gabagabowday balse waxay u muuqataa in carada bulshada reer Muqdisho aanay wali soo gabagaboobin. Turkiga oo gargaarkii ugu horeeyay u fidiyay dhibanayaashii qaraxii dhacay ayaa taageero gaar ah mudaharaadayaashu u muujiyeen. Ali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho.